بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد xubnaha labada gole aqalka hoose iyo aqalka sare mas'uuliyiinta kale oo dawladda marti sharafta kale haybadeeda wadatee ka soo qayb gashay munaasabada agaasinka wanaagsan leh assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh salaan kadib waa farxad bay noo tahay inaan halkan soo gaarno madal wax lagu saxo oo doodi ka furan tahay oo wixii soo qaldamay gadaal loo milicsado cidii soo abaabushay oo ama waqti gelisay ama rayi gelisay waxaan leeyahay jisaakumulaahi waa ku mahadsan yihiin waana soo dhaweeynaa oo waa rayi wanaagsan guud ay dhiway intaas kadib wadanku meelo badan uu ka burbursan yahay sida horey loo sheegay annaguna hadda aan buuxinaynana wax ka xaaraan uma jiraan wadankeena marka waqti lagu saxo qaladaadkii faraha badnaay oo aan la koobi karin oo na soo maray iyo madal lagu saxo cidii noo diyaarisay waa aadan maaragtay aanu amaanayna intaas kadib siyaasadda kaliya kama jiranin meelo badan aan ka jirana bulshaduna waa qaybsantahay oo ay tamis kala duwan ay leedahay marka waxaan anigu marka hore taladayda ku bixi lahaa shir kastoo la qabanayo iyo meel kastoo la isugu tegayo balansiga bulshada in la ilaaliyo oo qolo walba ay ra'yigooda keenaan ilaa qolo laga maarmi karaa ma jirtay saas markaan leeyahay waxaan u jeedaa aniga waxaan ahay oo laygu sheegaa nabadoona la yiraahdaa magacaasna dad badan ay la wadaaga saad ogtihiinba oo bulshada ku leh saameyn badan shirarkana ma yimaadin loogama yeero marka inaan waaga wanaagga dhabidiisa lagu dhicin taas waxay ka tahay tusaale hadda meeshan kuufi badan igama muuqato aniga lafteydana hadda markii la igaga yeeray waa saluwa ugu jiray markii waxaan garanayay wax badan oo soo socday oo maaragtay noocaas u eg marka waxaan rabnaa waxaa la yiri Soomaalidu waxay tiraahdaa reer nabad looma tali waayo bal horta inaan nabad helno aan ka bartiireyno doodaha waxaa lagu gaari doonaa saan isleeyahay horumar badan oo kala duwan saad ogtihiinba kuma faraxsanayn wax badan oo wadanka soo maray marka haddaan fursad u helno meel aan ku sheegno waxaan ugu jiroon xambaarsanahay waxaan isleeyahay waxay fududaynaysaa in laga gudbo mushkilada badan oon isleeyahay waa kuwa idin daashaday waxa kaleeto oon maaragtay ayadana aad ugu faraxsanahay wujuuda kala duwan iyo afkaarta kala duwan oo meesha wada fadhiyahay waxa wax badan looga gudbi karaa oo shida ah ama isfahmi way ah wada hadalka laftiisa waxaan ii muuqda rag badan oon isleeyahay maanta inaad is aragtaan waxay bilow ka tahay horumarka iyo nabadgelyada iyo isfahamka taasaan maaragtay ku faraxsanahay marka madasha si buuxdaan ugu mahad celinahay anigu waxaana iga codsiya shirarka aad qaban doontaan odayaasha door muhiima ka siiya odaygu saad ogtihiinba waxa in la qaybiyo maaragtay cadaalad sameeyo waxa ugu habboon qofku markaas wuxuu xambaarsan yahay qofkaan xil rabin qofkii nabad raba qofkii waayeela qofkii wax badan soo joogay qofkii maalintii wax qalloocdeen ilaa hadda shuhada ahayo taagnaay qofkaasi marka cadaaladna oo isagu hadda aan markaas tacasubaynin oon xil rabidiis iyo xoolo rabidiis midna aanay dadejinaynin oo laga yaabo cimrigiisuba inuu maaragtay la tacaalaaho oo gabawsi yahay qofkaasi waxa laga heli karaa sixitaan fara badan
marka madasha waxaan ka codsanaynaa hoon u sheegayaa in odayaasha dowr shariifa la siiyo dabcan waxaan is leeyahay mana lagu darsan doono waxbay maaragtay ay toosi doonaan haddii alla edmo wada hadalkaana inaan meeshaan soo gaarno aad ay maaragtay farax geline waxaana is leeyahay wax badan loogu gudbi doonaa in badanaad mahadsantihiin hada wabillahi tawfiiq